waa daqiiqadihii ugu dambeeyay ee noloshayda waxaana haatan loo sii wadaa tiirka toogashada kadib markii maxkamadda gobolka Mudug ay ku xukuntay dil toogasho ah. Hodan Maxamuud Diiriye inaxa waxa san 34 sano jira dil toogasho oo ah qisaastii marxuumad Saabiriin Saylaan Cabdille. Iyadoo waa Hodan Maxamuud Diiriye waxay si bareer ah oo arxan darro ah ay nafta u dhaafisay marxuum Saabiriin oo horay ay ugu qalatay guriga ay ka degneed magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Cadaaladii Saabiriin waa ay heshay inta yar ee dhimanna aynu la sii raadinno oo muuqaalkan qabo oo laygare sidoo kale qabo oo sheergare saaxiibadaadana la wadaag waxaanu kula wadaagi doonaa wax waliba oo ay maxkamadda ka sheegtay Hodan Maxamuud Diiriye oo maanta u ekeed in ay si quus ah u hadlaysay waliba waxa ay tiraahday sharciga islaamka iyo cadaaladda kama weyni wax walba oo ay maxkamaddu igu xukuntana waan ku qanacsanahay. soo dhawow daawade xogta oo faahfaahsan iyo Gaalkacyo warka farxadda leh ee ka soo yeeraya ayaan kula wadaagayaa. wixii lagu xukumay waa maqlay waana dhageysanay goobjoogna waa ahaa hadii wixii sharciga islaamka ay ugu xukunto meelna uga madheeri anigu wixii sharciga islaamka qabto meelna uga madheeri waxay ummadeeda shacabku ku qanacsan yihiin meelna uga madheeri. magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug maalmahan waxaa ka socday galdacwadeed aad iyo aad markaas u culus. galdacwadeedkaasi waxaa eedeysana ka ahaa gabadhan aad u jeedi kartaan ee 34 sano jirka ah waa ilmo badan waxa ay dhashay caruur kor u dhaafaysa ilaa iyo 14 caruur ah. cunuga ugu yar naaska ay nuujinaysay oo haatan naasaheeda caana ayaa ka da'ayay. laakiin maxkamadda waxaa la hor keenay oo ay xor ilaalinta ku eedeysay gabadhan aad u jeedi kartaan ee Hodan lagu magacaabo inay nafta dhaafisay marxuum Saabiriin oo ahayd gabar guriga uga shaqayn jirtay waliba ay u dishay si bahanlimo ah. isbitaalka Amora Specialist waxa uu dalka keenay qalab casri ah oo adigoo aan qalin lagu marsin ama dawo lagu siin ayaa laga daaweynayaa hameeyirida ragga. waxaan xaadir kugu ah isbitaalka dhaqaatiir PhD sidata oo 20 sano wax ka badan ka shaqeynayay cilmiga cudurrada ragga. Hodan Maxamuud Diiriye inaxa maxkamadda oo laba mar u fariisatay kiiska ay eedeysanaha ka ahayd gabadhan lagu magacaabo Hodan Maxamuud Diiriye ayaa ugu dambeyn maanta soo gunaanuday. Hodanna waxaa lagu xukumay dil toogasho ah oo waa ka haatan laga sii bixinayo xaruntii maxkamadda ee labadii cisho ee la soo dhaafay ay dacwadda ka socotay. dad badan waxa ay isweydiinayaan ma hadda ayaa tiirka toogashada la geynayaa Hodan. jawaabta oo fudud waa maya oo Hodan waxaa u furan inay qaadato markaasi abiil ama racfaan oo ay aado maxkamadda racfaanka gobolka Mudug. haddii maxkamadda racfaanka gobolka Mudug ay tan gobolka Mudug ee kale ee haatan xukunka riday ay ku raacdo xukunkii hore Hodan tiirka toogashada ayaa horay laga geenayaa oo waxaa la dhadhansiinayaa markaasi